ma ogtahay in shareecada islaamka si buuxda ay u ilaalisay xuquuqda iyo sharafta dadka naafada sidoo kale inta ma ogtahay in aayada quraanka kariimka oo ilaalinaya xuquuqda iyo sharafta dadka naafada ay ku soo deeyeen quraanka sida aayadaha ugu horeeya suurada Cabasa ma ogtahay muwaadin in qofka naafada ah uu xaq wuxuu u leeyahay inuu helo shaqo iyo shaqaaleysiin sida qofka aan naafada ahayn loona abuuro fursad shaqo iyo xirfad uu ku heli karo sidoo kale goobaha shaqada waa in lagu dhiirigeliyaa in qofka naafada ah uu xaq u leeyahay inuu helo shaqo sida qofka kale sida ku qoran qodobka 27 ee sharciga shaqada iyo shaqaaleysiinta ee qaramada midoobay ee ilaalinta xuquuqda naafada muwaadin ma la socotaa in naafanimadaadu aysan saameyn ku lahayn xuquuqdaada dastuuriga ah ee helista cadaaladeed maadaama dastuurka dawladda federaalka oo siinayo xuquuq iyo cadaalad la siman midda bulshada kale sida ku cad dastuurka dalka qodobkiisa 11aad oo xaqiijinaya sinaanta muwaadiniinta Soomaaliyeed gaar ahaan tan xuquuqda aadanaha sharciga naafada ee qaramada midoobay waxa uu tilmaamayaa in muwaadiniintu ay u sameeyeen yihiin sharciga hortiisa sidoo kale sharcigaas wuxuu ilaalinayaa sinaanta muwaadinka si looga fogaado kala faquuqida keeni karta cadaalad darrada sida uu qabo qodobka 5aad ee ilaalinta xuquuqda dadka naafada ee qaramada midoobay